muqaawamada Falastiiniyiinta waxay guntiga u xirteen siday u xaqiijin lahaayeen himilooyinkooda ku aadan xoreynta iyo soo celinta xuquuqda shacabka reer Falastiin ee la xaday iyagoo u maraya jid walba dagaalka ay kula jiraan gumaystaha. Xamaas iyo garabkeeda militariga Al-Qassam ayaa hormarinayay sanado badan awooddooda militari, amni iyo sirdoon ilaa ay ku guulaysteen in ay noqdaan awoodda ugu badan ee uu ka cabsado gumaystaha Yahuudda. Sanadii 2012 ayay ahayd markii ugu horreysay ee muqaawamada ku guulaysatay inay gaarsiiso duqaymaheeda Tel Aviv iyo Qudus, waxayna ku dhufatay gantaalka M75 ee maxalliga ah. Kadib markii duqaynta Tel Aviv ay khad cas u ahayd hogaamiyaasha gumaystaha, hadda wax caadi ayay u noqotay muqaawamada, iyadoo Tel Aviv ay noqotay bartilmaameedka gantaalada laga soo tuuro Gaza. 2018 ayay sawaariikhdu muqaawamadu ku khasabtay maamulka Yahuudda inay ku soo laabatay safgarad ku dhisan xabad joojin. kadib saacado uun markii ay muqaawamadu duqaysay magaalada Casqalaan, wacadna ku martay inay meelo kala gaarsiin doonto. Awoodda muqaawamada ayaa soo caanbaxday kadib markii ay soo saartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo wadata magaca Baabil, waana markii ugu horreysay oo diyaarad nooca ah lagu sameeyo gudaha dhulka Carbeed. Diyaaraddan ayaa fulisay howlgal sahan oo ay ka samaysay dhismaha wasaaradda dagaalka Israa'iil. Intaa kuma ekayna muqaawamada waxay sii ballaarisay horumarkeeda, waxayna hal-abuur ka samaysay loolanka ku dhisan maskaxda, iyadoo guul ka soo hoysay sirdoonka gumaystaha. dhinaca kale iyadoo laga duulaya midaynta awoodaha iyo howlgallada dhaqdhaqaaqyada muqaawamada ee kala duwan, waxaa la sameeyey 2018 qolka howlgallada wadajirka ee u dhexeeya 12 qaybood si loo maareeyo howlgallada marinka Gaza.